wafdiga dalalka beesha caalamka ee taageera nidaamka dimuqraadiyadeed ee Somaliland ee ku soo wajahan Hargeysa ayaa waxaa la sheegay inay sidaan fariin culus. wafdigan oo sida Geeska Afrika ogaaday ka kooban safiirro iyo safiirro ku xigeen ayaa dalka soo gaari doona 18 bishan ay ku jirnay ee 12aad waxaana ay kulankooda koowaad la yeelan doona madaxweyne Biixi. sida warka uu sheegay wafdiga dalalka reer galbeedku waxay madaxweyne Biixi uga warrami doonaan mowqifka dalalka Somaliland la saaxiibka ay ka taagan yihiin dhismaha guddiga doorashooyinka ee cusub iyo muddo kordhintii ay sameeyeen golaha guurtida ee Somaliland. waxaana fariimaha ay ku midaysan yihiin la sheegay inay ka kooban yihiin laba qodob oo aan si rasmi ah loo shaacin nuxurkooda, kuwaas oo aaminsan yihiin xal ay u noqon karaan xaaladda Somaliland ee siyaasadda ee haatan cakiran ee socdaalkooda sababtay. diblomaasiyiintan ayaa waxa ay madaxweyne Biixi soo gaarsiin doonaan fariintii ugu cusleyda dalalka reer Yurub, Mareykanka, Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub ay soo gaarsiiyeen Somaliland tan iyo intii ay qaadatay nidaamka xisbiyada badan ee dimuqraadiyadda ku saleysan. waxaana fariintani lagu sheegay mid saameynteeda siyaasadeed ay tahay mid culus. geesta kale safiiradan oo la filayo inay la kulmaan madaxda xisbiyada mucaaradka ayaa la sheegay inaanay la dhacsanayn go'aanka ay madaxda mucaaradku ku qaadaceen kulankii madaxweyne Biixi ugu baaqay in xal lagu gaadho khilaafka arrimaha doorashooyinka ka taagan.